weliga ama maqashay ama ma aragtay tuulo ama magaalo dadka ku nool dhammaantood qof kasta oo kamid ah uu iibsaday ama uu gatay mid kamid ah labadiisa kaliyood si uu uga baxo fakhriga ama gaajada. mawduuceena maanta ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan. daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa Axsan TV. fadlan barnaamijka intaynaan bilaabin muuqaalka like gare, haddii aad nagu cusub tahayna subscribe taabo channelka si aad ula socoto muuqaalada dambe. tuulo yar oo magaceeda lagu magacaabo Hawks oo ku taala dalka Nepal ayaa lagu naanaysaa tuuladii kalida ama Kidney Village. maxaa yeelay ficil ahaan dhammaan dadka halkaas ku nool waxay ka iibiyeen kaliyahooda kuwa ka ganacsada xubnaha bini'aadanka si ay u iibsadaan dhul ama guryo ayna u taageeraan qoysaskooda. kuwani waa dilaalinta xubnaha bini'aadanka. waxay u warsanayaan tuulooyinka saboolka ah ee ku xeeran Kathmandu iyagoo oo isku dayaya in ay ka dhaadhiciyaan oo si degan ula hadlaan dadka, kadibna ay mariyaan mindida. waxay adeegsanayaan taba ama iyo xeelado dhowr ah si ay ugu qasbaan dhibanayaasha helitaanka xubnaha bini'aadanka. waxay u sheegayaan xubinka laga jaro qofka in ay dib u soo kori doonto isla markaana dib ugu soo bixi doonto. ka ganacsiga xubnuhu waa ganacsi weyn oo ka jira koonfurta Hindiya. qaar badan oo kamid ah dadka tuulooyinkan la bartilmaameedsaday waxay ku hameeyeen inay guri yeeshaan, sidaa darteedna waxay iibiyeen kaliyahooda ama xubnahooda qaar kamid ah si ay u helaan xoogaa lacag ah oo ay ku iibsadaan guryo. laakiin riyadoodii si dhaqso leh ayay u burburtay markii masiibadii dhulgariirkii ba'naa uu ku dhuftay waddanka Nepal 25 Abriil, halkaas oo ay ku dhinteen 8,800 oo qof ayna ku dhaawacmeen 23,000 oo qof. niyadjabkii iyo murugadii ka dhalatay dhulgariirka, dadku waxay u jeesteen inay cabbaan alkoolada si ay u iloobaan murugadooda, iyagoo oo si tartiib ah uga sii darayo caafimaadkoodu. Krishna Biyari Nakadmi oo ah qareen ka tirsan ilaalada xuquuqda bini'aadanka ee dalka Nepal ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano BPR oo la shaqaysa dhibanayaasha ka ganacsaday kaliyahooda ayaa waxay tiri: waa la eriyaa bulshadan waana la takooraa sababtoo ah iibinta kaliyaha waxaa loo arkaa wax aan la aqbali karin. xitaa carruurtooda waxaa lagu takooray dugsiyada, taas oo ay u horseedayso in uu khamri cabbaan si ay u qariyaan niyadjabkooda. qiyaastii 10,000 oo howlgal suuq madow ah oo ku lug leh iibsashada xubnaha aadamaha ayaa hadda ka dhaca sanad kasta sida ay sheegtay ururka caafimaadka adduunka. sida ay sheegtay Global Financial Integrity ayaa waxay sheegtay ilaa 7,000 oo kaliyood ayaa si sharci darro ah loo helaa sanad kasta. ka ganacsiga xubnaha ee sharci darrada ah wuxuu soo saaraa macaash gaaraya 650 milyan oo euro sanadkii. sanadkii 2007 dowladda Nepal ayaa waxay soo saartay sharci mamnuucaya iibinta kaliyaha. ka ganacsiga dadka ayaa ilaa haatan ku go'doonsan aagag gaar ah oo ka tirsan dalka Nepal sida degmada Kafri Balance Walk, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in isbeddelku ku faafo dhulgariirka kadib. daawadayaal, barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku joogi doonaa. intaynu barnaamij xiga la kulmi doono waa anigoo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर श्रीमती मीनाक्षी महांती को तांकर फोन माध्यम रे एवं चिट्ठी पत्र माध्यम रे जणाइबा निमंते मु समस्त दर्शक